waxaan rabaa markaan ku weydiiyo markan ma degmaad matalaysay mise iskuul waxbarasho maya degmaan matalayay degma xamar jajab ayaan matalayay markii dambe riwaayad ayaa jirtay ayadana ay samaysay degmada riwaayaddaasoo ayadana waxaan ku dhahdaa banaadiri ahayd riwaayaddaas ayaan ka heesayey magaceeda ficil waalid yaa alifay wallaahi jaha ibraahim xasan ayaa alifay nin la yidhaahdo asna aad baan u salaamayaa jaha jaha waxaa ku jawaada xamar jajab baan ku ogaa koley dowladdii hoosena u shaqayn jiray berigii dowladdii maxamed siyaad bare ilaah u naxariistee marka maasha allah jaha aad baan u salaamaya hadduu imaqlayo aad iyo aad bal riwaayadda lafteeda iyo nuxurka gudbinaysay iyo heesaha ku jiray iyadana ka sheekee wallaahi kolley riwaayaddu waxay ka sheekeynaysa waxa weye wiilkii gabadh oo isjeclaaday gabadhii iyo wiilkii waalidkii dhalay baan isku fiicnaanaynin oo maxaan ku rahdaa meesha rabish xoogaa ka dhacay oo iska hor imaanaya waalidkii ayaa macnaha dhibaatada ugu weyn ee jaceylkaasi dhaawac u gaarsiinaya sidaasay maxaan ku rahdaa riwaayadda ku saabsanayd adiga doorkaaga muxuu ahaa anigu doorkayga inaan hoosta ka soo heeso ilan riwaayadda banaadiri bay ahayd bal arrintaa lafteeda waxay u baahan tahay in la fahmo fanaaniinta qaarna hoos bay ka soo heesiyeen oo tiyaatarku maadaamuu lahaa meel god hoose tiyaatarkaa ku dhigteen sooma maya degmooyinkaan ku dhignay marka bal arrintaas halkii godka ahayd maqsin baa laga soo heesayey waxaan stagekan waxa saaran fanaaniin kale gabar iyo wiilaha yaa adiga markaad heesaya stageka saarna marka wallaahi kulley horta riwaayadda aan kaaga sheekeynaya iminka waxaa ahayd degmooyinka riwaayad sidaa u caan ah oo ummadda ay wada garanayso ma ahayn waa ciyaal xaafi waxaa meesha kulley hadda dad soo baxayna iyo saa oo muuqaalada dadka ay garan karaan ma aha haddii aan ka sheekeeyo laakiin riwaayaddii ugu weyneed ee maanta maxaan ku rahdaa aan tilmaami karayo oran karayo allay lahay maanta ayay taagan tahay waxay ahayd riwaayaddii la magac baxday ninkaaxi gabadhii naxdiin baa ka dambeysay waxaan filayaa waa abaadir baara miyaa lahaa riwaayaddaasi axdi iyo arrin aan la ogeyn waxaa lahaa abaadir baana tan kale iyadana waxaa lahaa cali cusmaan droog allah u naxariisto heesaha ku jiray iyada heesaha ku jiray wallaahi waxay ahaayeen 3 hees oo banaadiri ah oo heesaha calaacalka loo yaqaano ayay ahaayeen marka waxaa kor ka jilayay nin la yidhaahdo shariif jeeg xaaji karleeb allah u naxariisto wuu dhintay labadaa nin ayaa aktar koowaad iyo labaad kala ahaa marka waxaa kaloo ka mid ahayd khadiijo qalanjo ayaa aktaradii koowaad ahayd waxaa ka mid ahayd oo maanta halkan aan ka salaamaya aan nolol ku ogahay ilaahay geerideeda mar dhow ima maqashiyo waa maama maryan mursal ciise ayaa ka mid ahayd marka fanaaniin waaweyn baa ku jirtay oo waxaa ka mid ahaa cabdalle nuuraddiin kaysar allah u naxariisto marka riwaayaddaasi waa riwaayaddii igu horeysayba aan ku soo galay fanka imsadii wallaahi kolley waxay ahayd 83kii waxaa ka mid ahaa heesta ugu horeysay ma guuree gacalkaage mana iga go'aaye guhaadiyo gariira gebilkayga guraaye garmiyaa sidaa leygale goob xunaa soo galay ii gudbooneene garab isiiye guulahey weyno ayaa ka mid ahaa waa gartay maryan iyadu maxay qaaday maryan mursal waxay ka mid ahayd jilaaga meesha ugu fircoonaa ee riwaayadda sheekadeeda xooggeeda waday ayay ka mid ahayd maama maryan mursal ciise aad baan u salaamaya qadiijana lafteeda qadiijana waa qalanjadii koowaad bayba ahaydba riwaayadda raggana ragga waxaa ka mid ahaa waan ku yidhi shariif jeeg iyo xaaji karleeb cabdalle nuuraddiin marka aad bay u badnaayeen oo salaad barako gulow baa ku jiray maasha allah riwaayad aad iyo aad u weyn ba ahayd waa gartay riwaayaddii kale iyadana la odhan jiray sharaxii la tumay waxaan filayaa ninkii la odhan jiray cali inuu kalifay soo ma haddaba cali bin cali laakiin waxaa ka soo horeysay riwaayad kaloo asna abwaanka saaxiibkay taageerahayga ahaa koowaad waa shariif jeeg riwaayadda axdi iyo arrin aan la ogeyn baa ku xigtay
oo iyaduna imise dahayd waa isla sanadahaasi un way issaarnaayeen waxba uma dhexayn. heesaha ku jiray ee caan baxay maxaa ka mid ah riwaayadaas waxaa ka mid ahaa hees aan isla qaadaynay aniga iyo gabar la yidhaahdo ayadana waan salaamayaa jidda sheekh bashiir ayay ahayd heestaasi ila qaadaysay. soo jeese ka soo jeese juqmeel ahaad jidka jiri haysa jibisa iyo abeesa adoon ujeedinay jafku sii karaane adoo ujeedinay jafku sii karaane jiriskaaga ma dhaafe iila joog jab ma qaadahaye iila joog jeelkaagiyaanahay hay jaraaxine jalaafa ii dhigine muusigii baa naga maqan. cajiib wey waa gartay banaadiriga xagga banaadiriga horta kooxda iftin aan ku laabto iftin markaa iyaga toos baad ula shaqo bilowday miya mise iftin si toos ah macnaha dowladda xaggeeda anugu mashaar kama qaadanin laakiin waxaan ahaa verivat waa barnaamijkii markaa la dhigo unbaan wax ku lahaan jiray. liannu taana waxaa kaliftay waxaa ahayd macallimiin bay wada ahaayeen oo marka anugu macallinnimo kuma soo gelin oo barbaarinta ayaaba lagu yidhi fankayga ayay igu soo dhoweeyeen maasha allah. heesihii aad la qaaday kooxda iftin ee caan baxay ama barnaamijyadu aad kala qaybtay noqotay kuwee ka mid ahaa heesahan iftin aniga aan ka qaadi jiray waxay ahaayeen ay u badnaayeen heeso jacayl caadi ma ahayn heesahan waxbarashada ay ku gudbinayaan iyo heesahaas kama qayb qaadan jirin waa barnaamijyada madadaalada wey waxaan anugu aan ka qayb qaadan jiray maasha allah. waxaan kaloo ka faa'iiday ayaan ka tegine miisiga waxa uu galay iyo wuxuu gudaba halka aan ku bartay fahamka weyn aan ka helay waa xaggaasi. rag badan oo musicianista joogay oo aad iyo aad igu soo garab qabtay noodkii i baray wax walba miisig sheegta maasha allah ayagaan ka gaaray gobnimada maanta aan higsanayo. bal heesihii xafladaha heese badan waxaa jirta fanaaniinkaa horreeya dib u qaaday oo cumar nuur cabdille oo isaga laftiisa codadkiina mararka qaar si laysku maaragtay layskugu soo dhoweeyo oo siba isku shabahdaan waa siday yiraahdaan aniga dadka aaminsan baan arrintaa ka mid ahay maasha allah. heesihii aad qaaday bal wax naga xasuusi iyadana iftin barnaamijyada u horreysad la dhigtay wallaahi waxaa ka mid ahayd heesta la yidhaahdo adigoo caruur cumar nuur cabdulle ilaahay naxariistii janna allah siiyo cumar saaxiib aad iyo aad isugu dheer baan ahayn muddo waa isla deganeen dad aad iyo aad macnaha isugu dheer ayaan ahayn asaga iyo allahu naxariistee maxamuud goox qarboosh marka cumar arrimihiisii macnaha way fogyihiin saaxiibo macnaha saaxiibo dhaafay baan isku ahayn macnaha cumar kalgacal xoog badan ayaa naga dhexeeyey cumar. xaggee isku baratay cumar waxaan isku barannay hadduu ilaahay ku waran yahay wasaaradda waxbarashada. taariikhdiisii bal wax nooga sheeg in horta diisoor ku dhashay waa jirtay kolley waa caantaasi waa la ogyahay reer diinsoor buu ahaa hergelinta heesaha ayuu ka qayb qaatay. cumar waa fanaan aan wallaahi waxaan ku matala aan garanayn run ahaantii nin iska cod gaabanna uu ahaayo ummadda ammaanka heli jirtay nin sidaa nacam u qodqood badan ma ahayn cumar ciddii aragtay kolley waa nin iska afgaaban buu ahaa maskiina qofku maxaan ku rahdaa la kulmaba kalgacal unbuu qaaday cumar nin aad u dhib badan ma ahayn ma dhib badnayn cumar. bal fankiisii qiime fankiis fan la sheegi kara maaha waa fan ku dhisan fan nooc cajiib ah oo fan noocii la doonayo in laga heli karo codadkiisa dhexdiisa ninkii dhegaysanayo haddii uu jecel yahay kugu abuurayay maxaan ku rahdaa wixii dareen ahaayee heesta ay xumbaarsanayd cumar cod deeqsi buu lahaa maasha allah. heesihiisii heestii tusaale ahaan istar oo kale iyo heesihii bal hal hees oo kale oo saaxiibkaa maadaama iskuna cod dhaweydeen saaxiibna ahaydeen bal naga xasuusi wax ka mid ah. hanaan socodka laafiya haglii wax qabashada hindiisiyo faallada hadal celiiska sheekada haddaan caana lagu habin aman hooyadeed korin maxaysiin asluubta idibtiyo xishoodkii
ayaa ka mid ahayd heesaha cumar aan jeclaa Een, maasha allah. goorma isu kii dambeysay cumar cumar wallaahi ma dhowa intuusan dhiman ka hor ayaan anugu maxaan ku rahdaa ka tegey waddankii xagga iyo etoobiya aan u sii boqoolay marka alxamdulilah anoo meelaha ku sii maqan ayuu dhintay cumar ilaahu naxariisto. waa garta waxaan rabaa bal tegitaankaaga etoobiya iyo fankaaga iyo arrimaha waan kasii sheekaysan doonaa waxaan rabaa kooxdii libaaxyada banaadir soo maahayn mise maaweelada banaadir waxay ahayd libaaxyada maaweeliska banaadir. banaadir haa miisiga waxaa tumayey kooxdii Somali Jazz uu ka mid ahaa cabdi cali sow nuur macalin maysara kastumiina maxamed xuseen faarax goobe allah yarxam raxmiin markaa baytariga tumayey fanaaniin aad iyo aad u waaweyn oo caana ayay ahaayeen Somali Jazz. bal sidee ku bilaabmatay kooxdan maaweeliska banaadir ka nooga sheekay wallaahi taa sheekadeeda aad bay u dheer tahay waa lagaga khibrad badan yahay oo rag ani iga horeeyey baa jira sida shariif jaag oo kale ayaa ka sheekayn kara libaaxyada maaweeliska banaadir axmed naaji baa ka mid ahaa faadumo qaasim baa ka mid ahayd allah yarxam raaximiin faadumo qaasim waa beri bay ahayd axmed naajina waa beri buu ahaa laakiin maaweeliska banaadir haddii la yidhaahdo nacam lafdhabaradoodii ayay ka mid ahaayeen dadkaasi aan tilmaamayo. shaqadoodii iyo bal ka sheekay kulli waa maaweelino dacwaysidii iyo meelaha baararka iyo meelaha maaragtay farxadu ka jiraan bay ka qayb qaadan jireen may ayaga xagga riwaayadaha ayay aad iyo aad ugu caanbaxeen libaaxyada maaweeliska banaadir riwaayad jiliinka ayay ku wanaagsanayeen laakiin Somali Jazz iyo qolooyinkaas miisiga tuma ayaa aroosyada iyo kilaabada ka tumi jiray sidaa wey.